toddobaadkan waxaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ka socda howlgal ka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab kaas oo lagu baacsanayay dhowr aag oo kala duwan isla markaana qasaare kala duwan lagu gaarsiiyay argagixisada Al-Shabaab agagaarka degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose iyo inta u dhaxaysa degmada Jirbi ee gobolka Jubbada Dhexe ayay ka dhaceen howlgal kala duwan waxaana jira jab xoogan oo khawaarijta halkaas lagu gaarsiiyay dhinaca kale ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo ciidanka kumaandooska xooga dalka Soomaaliyeed ee danab ururkiisa shanaad ayaa howlgal wadajir ah oo ballaaran ka fuliyay deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowladda Jubbaland ciidamada waxay howlgalka qorsheysan ka fuliyeen deegaanada Barjaale Dharkayn urur Sariiraha Urgiyow Yaaq Caleen iyo Aboodin kuwa oo dhamaantood ay kooxda argagixisada ah ka sameysteen talisay ay u diyaarsadeen godad dhulka hoostiisa ah waxaana toddobaadyadii la soo dhaafay ee ku ururiyeen godadka dhulka hoostiisa ah ay ka qoteen kooxo ka tirsan khawaarijta iyo qaraxyo ay doonayeen in ay ku weeraraan xerooyinka ciidamada kuna dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee isticmaalaya wadooyinka halbowlaha u ah deegaanada oo kala ah ama kuwa markaasi kala bara degmada Afmadow iyo degmada Kismaayo deegaanka Barjaale waa markii labaad oo ciidamada ay ku xasuuqayaan kooxda khawaarijta ee halkaasi markaasi isku aruursanaysay iyadoo godadka idin muuqda lagu xasuuqay horjoogayaal waaweyn iyo ajaanib ka barbar dagaalamaysa khawaarijta halkaasi ku sugnayd firxadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee ka cararaya ciidamada ayay xogaha aynu helayna sheegayaan in ay gaareen deegaanada ka agdhow degmada Jirib ee gobolka Jubbada Dhexe halkaas oo waqtigan ay gabaad ka dhiganayaan waxaa jira warar kala duwan oo aynu ka helnay deegaanka Kamsuma halkaas oo la sheegay in kooxda ay gabi ahaanba jartay buundada Kamsuma oo muhiim u ahayd isku socodka dadka isaga kala gooshaya labada gobol ee Jubbooyinka walow ay markii dambe iyagu sheegeen in gaari ay la go'day balse wararka dhabta ah ayaa sheegaya in si ula kac ah u jareen cadaadis xoogan oo uga yimid ciidamada kala duwan ee ku baacsanaya qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose